ودوتيو هرا لو صعونيا هرا لو صعونيا hadan hana qadnayo deegaankeeni hirgalay hawshan u taganahay horiyarina habsaamin mayse hora loo soconaya hora loo soconaya daawadayaal goobtan hadda aan idinkala hadlayo waa xarunta ugu weyn ee kambaniga Hombach oo uu ka shaqeeyo Korneyl Axmed Jaamac Xaaji Ciise Gadle oo goobtan goordhow soo gaari doona saacada qaaradda Yurub iyo wadanka aan ku suganahay Suudaan waxay garaacaysaa 12kii subaxnimo goobta waxaa ku sugan warbaahin badan oo Soomaaliyeed iyo TV badan baa goobta ku sugan waxaa si toos ah idila socodsiinaya anigoo Cabbaas Suleymaan Jaamac Cabbaas Madani daawadayaal sida aad muuqaalka aad ka aragtaan waxa xarunta kambaniga weyn ee Hombach ay soo gaaray Korneyl Axmed Jaamac Xaaji Ciise Gadle oo kamid ah korneeladii dawladda dhexe Siyaad Barre oo ku sugan caasimadda labaad ee dalka Suudaan halkaas oo aan maanta wareysi kooban oo taabanaya marxaladaha Soomaaliya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya iyo marxaladda cusub ee uu soo wajahay dadka reer Khaatumo oo aanu kaga wareysan doono xaaladda guud ay marayaan siyaasadda geedi socodka nabadda ee North Soomaaliya waxaa soo gaaray Korneyl Axmed Jaamac Xaaji Ciise Gadle oo idilhaanba waxa weeye waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka lahdan madani oo toddobaadkan uu martiin ugu yahay Korneyl Axmed Jaamac Xaaji Ciise Gadle saacada qaaradda Yurub waxay garaacaysaa 12kii subaxnimo waxa goobta ku sugan warbaahin badan wareysi degdeg ah oo xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya aanu kaga hadli doono ayaan halkan kaga qaadi doona Korneyl ku soo dhow barnaamijka lahdan madani waa maadsan tahay dhamaantiin adiga iyo wariyaasha kale oo dhawahay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya waxay gashay marxalad ciideed oo hadday tahay xagga muslimka oo ciidul fidrigi iyo ciidul 16 Juun oo gobolada waqooyi ay xornimadii ka qaateen gumeystihii Ingiriiska bulshada Soomaaliyeed ku daawanaysa adoo fursadan ka faa'iideysanaya bal marka ugu horeysa intaynan barnaamijka ayna u gudalgalin maxaad ugu baaqaysaa ama xambaliyada ciida aad u gudbinaysaa social media waa mahadsantahay mar labaad bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay waxaan marka halkan hadda aan xambaliyo iyo bogaadin ciidda ku saabsan uga dirayaa madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo Professor Ali Khaliif Galayd iyo golayaashiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliya sanaag yaan reer Khaatumo meel ay joogaanba iyo ummadda Soomaaliyeedba ciid wanaagsan baan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay ilaahay ciideeda kale hayna gaarsiiyo وهاك مسؤولين تا قرب شوكتا وقصر سريسي قاردن يوروب قارهان ودن كسودن بعد كتير معمول كخاتمه واسد حرير كي الدولة الفدرالية كلها هيدين معمول كي خاتمه استيد أوف صوماليا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدين شيء يا سؤال هدان أنا سكدايو ولي دولة دي فدرالية الصومالية مدحوينها كي هي عبد الله فرماجو ولي واسديدي وح ندح مري مجرى ولي برتدي بيتاجنت والدولة مش لو دورتي حمر يكون فرتي ولي جوجته وح أنجا حديدا وندح مري هذا جودها أنت شعبك رخاتم هذا تاي مدحدا رخاتم لبضع ولي كيس كاسي وري وسيدسي بيتاجين وهاك حكومة عصبة حمر كدلتي وهجامي محمد عبد الله فرماجو مدحونها عصبة دلك الصومالية hogaamiyaashii hore Soomaaliya waad u tagi jirteen xamar baad tagi jirteen sababta ilaa hadda madaxda Khaatumo ay xamar u tagi laayeen maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan moodayay kiiskaasi ama arintaasi mar hore inay soo xidhantay in badanna waa la sheegay waxaan moodayay in arrinka uu soo xidhay madaxweyne Ali Khaliif Galayd xafidullah inuu soo xidhay 11 bilood ayuu علي خليف قليل مدحوينها خاطب او جوغي مقالة لياض حمر او جوغي ان مامولكا حمري او اقونصدو مامول قوبليتكا
khaatumo istida Soomaaliya inuu aqoonsado oo hal maamul oo kaliya ka horeeyay maamulkaas leeyahay Puntland kaliya ka horeeyay dhammaan maamulada dambe oo kale oo dhani iyadoo aan la samayn oo aan jirin ayaa lagu dhawaaqay maamulkaas khaatumo ilaa iyo maalinta 12 bilood cali khaliif wuxuu xamar u joogay in maamulka khaatumo iyo ummadda Soomaaliya sanaag iyo cayn ee halka degan la aqoonsado sida maamulada kaleba cali khaliif 12 bilood halkaas wuxuu u joogay arinta waana ku soo hongoobay koonfurta Soomaaliya ee magaalada Xamar iyo madaxda koonfurina dhegaha ay ka laabatay albaabada ka soo xidhatay dadka reer Khaatumo waa wada ogyihiin cali khaliif 12 bilood markuu halka joogay oo loogu jawaabay madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh uu hortiisa ka yiri maamul waxa ugu dambeyn doona la sameeyo Soomaaliya oo maamul goboleeda waxa ugu dambeyn doona maamulka Hirshabelle hadda la yiraahdo ee Jowhar kaas ugu dambeyn doona markii cali hortiisa laga yiri cali maalintaas ayuu iskaga soo baxay ama ka soo qoostay meesha Xamar la yiraahdo iyo madaxdii joogtay cali waad ogtiin isla markuu ku soo noqday xaruntiisii iyo madaxtooyadiisii oo markaasaan filaya ahayd balcad waxa uu shiriyay baarlamaankii iyo ummadii reer Khaatumo guda iyo dibadba ee joogtay ayuu shiriyay wuxuu shiriyay oo u sheegay ummadii in uu ku soo hongoobay maamulka Xamar jooga albaabadana laga xidhay wax dhageystana uu waayay halka markuu sheegay cali waad ogtay dastuurkii Khaatumo waa la furay waxaana uu cali sheegay in la furo dastuurka oo aynu heshiis la gallo cid kasta oo kale sida Somaliland ay koob ka tahay Puntland iyo kuwa kale iyo gaar ahaan Somaliland oo inagu markaa aynu ishaynay in aynu la hadli karro iyo cid kastaba halkaas markaa dastuurka la furay sidaas dastuurkii Khaatumo iyo wadahadalka Somaliland sidaas ku yimid sidaasana koonfur meeshii la oran jiray ee Muqdisho iyo madaxdeediiba looga soo qoostay sidaasina albaabada uga xidheen maamul goboleedka Khaatumo halkaas ay markaa sidaas ay arintaas ahayd siyaasadina cusub ama Khaatumo maamulka Khaatumo wuxuu abaaray wadahadal inuu la furo maamulkii marka la fiiriyo dhulka Somaliland ama dhulka Khaatumo gacanta ugu badan uu ku hayay maamulka Somaliland baa ku haya waxaad dan badeen inaad Somaliland wadahadal la furtaan wadahadalkii maalin dhoweed waxa ka soo baxay qodobo 5 qodob oo is-afgarada heshiis afgarada shacab badan baa ka qeyliyay waxa kamid ah in Somaliland la wada leeyahay la dhisto dastuurka Khaatumo waxa ku qorneed Khaatumo inay weligeed jirtay sidee la soo waafajin karaa labada qodobo bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeye san ku sheegayba dastuurku wuxuu qorayaa in cid allaali cid doono lala hadlo ayaa dastuurka Khaatumo qoraya cid uu ka mamnuucay iyo meel ay ku qoran tahay cidna lama hadli kara ma jiro meel ay ku qoran tahay hadii reer hore loo dagaalamay ama Somaliland iyo Khaatumo ay dagaalameen meel lagu la shiri karo kuma qoran Khaatumo marka waxa weeye halka markay arintaas sidaa tahay maamulka Khaatumo wuu ku dhiiriday waan ugu hambalyeynaya sida fiican uu ugu dhiiriday inuu heshiis la galo Somaliland tan kale ee ahayd tan haddaan ku yara noqdo maamulka Khaatumo waxa loo sameeyay maamul waxa loo samaystay inuu isagu ummadan matalo ummadan Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee shacabka ahayd ee aan cid xukumin ayaa loo sameeyay in ay iyagu hormood u noqdaan oo iyagu ay heshiis u doonaan oo meel allaal iyo meesha danahooda galaan ay gasho inay u galaan horta maamulka Khaatumo sidaas loo sameeyay maamulka Khaatumo maalintii la sameeyay qabiil dhulbahante la yiraahdo ama hal la yiraahdo Maxamuud Bari ama Faarax Garaad hal la yiraahdo ama ka hal la yiraahdo waxa weeye sheekada qabiilku maalintan maamulka samaysanay maalintaynu maamulka samaysanay ayaa qabiil la yiraahdo dhulbahante qabiil wax la yiraahdaa oo isagu meel walba iska yaacay oo isagu meel walba iska maraya horta maalintaas ayuu horta qabiilkaas xirmay Maxamuud Garaad wax la yiraahdo oo heshiis gali kara ma jiro Faarax Garaad wax la yiraahdo oo heshiis gali kara ma jiro waxa heshiis ka galaya maamulka Khaatumo ee aynu dooranay dad baa waxad moodaa wali inaanay garanaynba maamulka Khaatumo waxa loo sameeyay hadii maamulka Khaatumo aanu heshiis galaynin Maxamuud Garaad baa heshiis galaya ma Faarax Garaad baa heshiis galaya ما قبائل بقبيل وصل قليا واحد أمدا كلا جارية أم هالشيء سيدا كلا جارية وحوية لبا معمول اللي هي الصومالي اللي يا خاتم استيت
qabaa'ilkan hadda aad carabaabaysid waxay ka mid yihiin qabaa'ilkii khaatumo dhistay waa ay ka biyadiidi karaan maamulka iyo khaatumo sidaa u socoto miyaanay danahooda gaarka aysan ka tashan karin hadday maamulkii ay dhisteen danahooda ay ka arki waayeen may adeer mid haa haddii qabiil layahda isaaq uu shirayo qabiil dhulbahanta layahaa la shiraya meeshan waxa shiraya ma aha qabiil dhulbahanta la yahdo iyo qabiil isaaq la yahdo iyo habar jeclo dhulbahante shiraya ma jiro maamul baa maamul la shiraya maamul baa maamul la hadlaya waa sidaa ma jiro qabiil la shiraya waxaan socdana dadku way isku khaldayaan nin aan saaxiibnahay ayaa waxaan ka wacay Hargeysa markii madaxweynaha Khaatumo iyo hadda hawsha shanta qodob iyo la soo saarayay wuxuu yiri dhulbahanta oo dhan oo nin waliba uu halka warqad ugu qoran tahay anigu waxaan ahay Maxamuud Bari anigu halka waxaan ahay Faarax Garaad anigu halka sidaasaan hay ugu qoran tahay Siilaanyow Ali Khaliif iyo gruubkiisu naba xukumaan ayaa waxay tuban yihiin Siilaayo madaxtooyadiisi ay tuban yihiin qolo waliba warqad bay dhiibatay iyagoo la Siilaayo rabnaa in la kulano u sheegno in aanu Maxamuud Bari nahay iyo inaan Faarax nahay Ali Khaliif iyo gruubkiisu inuusan betelin halkaasay tubnaayeen waxa weeye waxa iskaga khaldan maalintii taleex ama saxdheer lagu sameeyay maamul goboleedka Khaatumo lagu sameeyay ee madaxweyne iyo golo aynu dooranay maalintaas waxay u dhamaatay waxa la yiraahdo qabiil shiraya maalintaas waxay u dhamaatay dad iska socda maalintaas ay u dhamaatay garaad isagu marba meel ka degaya maalintaas ay dhamaatay maamulka Khaatumo waxa loo sameeyay waa ku celinaya dadku inay faasanayn bad moodaysa waxa maamulka Khaatumo ayaa decision makers waxa noo maanta anaga maamul goboleedka Khaatumo State ba decision makers noomaha oo dhaqameed noomaha qabiil Faarax iyo Maxamuud Garaad reer la yiraahdaa annaga go'aan nooma jarayo waxa oo noo sameynayna ma jiro haddaanu nahay shacabkii reer Khaatumo ee Soomaaliya gacan maamulkaasaanu dooranay dadku waa inay fahmaan in Maxamuud Bari iyo Faarax waxa la yiraahdaa waxa ay go'aan gaari karaan inaan jirin waa qabaa'il maalinta ay noqoto in habar jeclo ama isaaq qabaa'il la kulmayo waa inay sugaan garaadku waa inuu sugo maalinta garaad isaaq yimaado maalintiisa xilligiisa waa inuu sugo laakiin maanta maamul goboleedka Khaatumo ayaa ah decision makers haddeen usoo laabano dhanka qodobadii is-afgaradka ahaa 5 qodob baa ka soo baxay adigu fikirkan ama aragtidaada sidee ay kula muuqataa qodobadaas bismillaahir rahmaanir rahiim anigu aad baan u soo dhaweynayaa madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo State Ali Khaliif Galayd iyo golihiisa wasiiradiisa golihiisa baarlamaanka sida fiican ee ugu dhiiraday in uu Somaliland la hadlo oo uu go'aamo la qaato oo uu heshiis la galo geesinimada noocaasi waa ta looga baahan yahay qofka leadership waa go'aamada iyo dhiirinaanta looga baahan yahay Ali Khaliif sameeyay Ali Khaliif waa wuxuu sameeyay ninku mas'uulkii go'aanka uu qaadan karo ee degdeg ah waxaan xusuustaa anigu oo aan akhristay maada la yiraahdo go'aan qaadashada sarkaalka ama go'aan qaadashada hogaamiyaha markaanu baranaynay hogaaminta ciidamada markaanu baranaynay ee sarkaalnimada markaanu baranaynay maadadaas ay ugu soo dhacday tacaalul sameeye maanta waxaana la baray had ninka sarkaalkii waa taliye markuu yahay ee uu ciidan haysto haddii xaalad degdeg la soo kulanto inuu qaadan karo go'aan degdeg ah waa inuu go'aan degdeg qaadan karaa ka waran haddaad afarta koone laga soo galo ama shaqadii ama ciidankii marka aad maamuleysay ay ku timaado arrin degdeg ah oo dagaal ama mid kale ay ku timaado haddaad tidhaahdid waxaan sugayaa ama raadinayaa madaxdii iga sarreysay ee taliyayaasha aniga xukumayay ayaan rabaa amar inaan ka qaato sidee xaalkaas noqonaya adiga iyo ciidankaaga waxa lagu dubanayaa goobtii lagu dubanayaa taliyaha marka waxa la baraa ama hogaamiyaha la baraa inuu qaato go'aan degdeg ah haday ku timaado xaalad degdeg ah maadadaas ayaan aniga igu soo dhacday ee calaaqatay ninku hadduu hogaamiye yahay waa in uu qaato go'aan degdeg ah markuu dalkiisa iyo dadkiisa u yaabo waa in go'aan degdeg u qaato waa emergency case waa inuu degdeg qaato hadduu yiraahdo isagoo arrin degdeg lagu jiro dalkii uu galo hadduu yiraahdo golo baarlamaan baan
go'aan ka sugaya golo wasiir baan shirinaya hadduu yidhaahdo dee meeshiiba dalkiiba waa la qabsanaya madaxweynuhu ama taliyuhu isla markaaba waa inuu go'aan degdega qaato isagoon baarlamaan u yeedhan isagoo madaxdii ka sarraysan u yeedhan isagoon cid kale u yeedhin oo shirin waa inuu amar degdega bixiyo cali khaliif wuxuu qaatay leadershipkii ugu muhiimsanaa iyo habkii ugu fiicnaa ayuu qaatay oo uu ku dhiiraday inuu somalilan u galo oo hargeysa tago iyagoo oo col yahay waa hagaag madaxweynaha khaatimo ma waxaad leedahay sharci baa u yaalla khaatimo dastuur baa u yaalla markaad leedahay keligii waa inuu go'aan degdeg ay qaataa macnaheedu waxa weeye sharciga inuu ku xadgudbo oo dastuurkii khaatimo u yaalay uusan fiirin ama baarlamaankii ama wasiirada uusan la tashanay go'aan uu degdeg qaato mise waxaad leedahay waa inuu dadkii la tashtaa oo go'aanka ka bacdi markuu dadku la tashto uu go'aan qaataa waa sax in sida aad sheegtayba in madaxweynuhu inuu golihiisa wasiirada golihiisa baarlamaanka inuu la tashado oo waxa uu soo sameeyo uu hordhigo inuu sharciga ilaaliyo inta aad sheegayso dhanba waa sax weeye laakiin waxaa jira markaad mas-uul markaad tahay oo madaxweyne tahay oo halkaa cali khaliif uu joogay oo kale ay arrintu tahay uma baahna baarlamaan iyo golo wasiir la shishiriyo uma baahna yaa wax og ma aniga oo halkan joogaa wax og ma mid maraykan joogaa wax og ma mid garoowe lacag yar ka qaataa og ma mid minnesota joogaa og arrinta khaatuma yaa og xaaladda ay ku sumanta yaa og waxaa og cali khaliif madaxweyne cali khaliif iyo goliyaashiisa ayaa og xaaladda ay ku sugan tahay maamul goboleedka khaatumo iyo xaaladdiisa maamulkaasaa og ma oga aniga iyo nin kaloo meel iska taagan oo hadlaya ma oga marka waxa weeye wuu ku dhiiraday waana sharci madaxweynuhu hadduu situationka u arko inuu xun yahay inuu go'aan degdega qaato aniguna arrinka cali qaatay waxaan u qaadanayaa sidii adigoo ciidan haysta oo taliyo ah oo dhufays ku jira oo lagu soo weeraray dagaal ma qaadi karnaa mise taliyayaashii naga sarreeyaan ula hadlallaa waxa weeye taliyaha kaa sarreeya cid intaad la hadlayso meeshii baa lagugu gubayaa go'aankaas waa go'aanka noocaas oo kale ah iska degdeg waa inaad go'aan qaadatid waa inaad wax iska celisid waa inaad hawsha gashid ka bacdi markay soo dhammaato hawshaasi ama xumaan ama wanaag ku soo dhammaatee inaad ku soo noqotid golayaashaadii oo sheegtisay wax u dhaceen iyo meesha wax marayaan nidaamku waa sidaa weeye leadership waa habka cali u dhaqmay inuu go'aan qaatay waa raganimo isaga cali og nidaamka khaatulo iyo maamulka khaatimo xaaladdu ku sugan yahay iyo meesha faa'iido ugu jirto iyo meesha ay khasaare ugu jiro yaa og cali khaliif madaxweyne cali khaliif waa waxaan u dooranay waana geesi weeye waana ninka leadershipka waxyaalaha looga baahan yahay go'aan qaadashada ninkuna hadduu hogaamiye yahay waa sidaa cali sameeyey waa garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee deegaanada khaatimo lafdhabar buu ahaa khaatimo waxa uu ahaa isim aan hargeysa iyo garowe labadaba aan tegin waxa uu ahaa isim qadiyadda uu aaminsan yahay ee reer khaatimo aada ugu adag go'aamada hargeysa ka soo baxay khaatimo iyo somalilan guud ahaan waa uu ka soo horjeestay waxaana uu yidhi qodobo ma aha khaatimo loo aasaasay inay hawshaasi gasho idinku sidee u aragtaan hadalka garaadka guud ee deegaanada khaatimo wel garaad jaamac garaad cali waa garaadkii guud ee gobollada sool sanaag iyo cayn waa boqorkii sool iyo sanaag iyo cayn ummaddaa boqorkoodii weeye garaadka anigu waan dhegaystay garaadka waan soo dhowaynayaa fakarkiisa fiicnaa iyo hadalkiisa fiicnaa uu ku hadlay waan soo dhowaynayaa garaadku haddaan in yar aan ka hadlo garaad jaamac garaad cali ilaahay ha xafido waa garaadka keliya ee qadiyadda khaatumo ama sool iyo sanaag iyo cayn lagu dili gaadhay garaad jaamac waa ninka keliya ee odadhaqameed ah ee lagu dili gaadhay qadiyadda sool iyo sanaag iyo cayn haddaanan khaldanayn hal ilaa labo ilaa saddex baan garanaya garaad jaamac oo u socda qadiyadda sool iyo sanaag iyo cayn siday wax u noqon lahayd oo meel loo galo la dili gaadhay example haddaan tusaale tii ugu dambaysay ku soo qaato markii ugu dambaysay isagoo ummad reer khaatuma oo sool iyo sanaag iyo cayna oo qabaa'ila oo isdilay isagoo mag u kala qaybinaya ayaa goobtu magta ku qaybinayey ayaa baasuka lagu soo riday oo lagu baabi'iyey ilaahay baa mahad leh
إلهي جرات كالكا كود لين بانو شكر نقينا جرات جامع إلهي كم جبين كمان الدين هالكا إن إلهي وكبد بادي ومركي جدا بيسي واحد دليي بسوكه كسر هديي الدل لهنا وحوي وعدد كسر تيدا السول إيا السناج إيا عين إيا كود قبائل كلو دبت تاجن والدبت تاجن هجي جرات جامع وانين كنوع عاصة اللي قدي للجاري قدية الصول إيا السناج إيا عين إلهي كنا بتقليي وانك ان اس اس سي سميي وانك خاطمو الى هيركا اللي قد لي غارسيي marka nu soo noqdo su'aashaadii ahayd garaadkii ayaa wuxuu diiday shantii qodob ee ka soo baxay hargeysa ee isku safgaradka ahaa ee khaatumo iyo Somaliland su'aashaadaas garaadku hadalku bixiyay waan naxadin oo u naxayo ummadiisa sool iyo sanaag iyo cayn uu u naxaya hooyo iyo aabe ayuu u yahay gobolada sool iyo sanaag waa hooyihii iyo aabihii hooyaha iyo aabuhuna caruurtooda mar walba waa u naxaan mar walba waa u naxayaan sababta wuxuu ugu naxayaa walwal waxay ka qabaan in caruurtooda meel xun ku dhacdo garaad jaamac hadalkiisu waa naxadin uu u naxayo dadka shacabka ee Soomaaliya sanaaga iyo maamulkiisu sameeyay laakiin ma ahayn maamul baa ka soo horjeeda iyo khaatuma ma jirto iyo nin maanta lagu sifeen karo inuu Soomaaliya sanaaga yahay ama maamulka khaatuma ka soo horjeedo sida ninka ilaa heerka aan sheegay lagu gaarsiiyay waxa weeye garaadku horta waa ninka noocaas looga bixi maayo hadalkiisana wuxuu ahaa baqdin oo u baqabeey ba ka yeersiinayay waana soo dhaweynaya fikirkiisa garaadku xor buu yahay garaadka waxaan ku taageersanahay anigu oo ku celcelinaya hadalkii har iyo habeen marka la waristo uu ku celcelin jiray ee ahayd annagu waxaanu nahay oday dhaqameed baanu nahay siyaasad shaqo kuma lihin waxa siyaasadda noo qaabilsan maamul goboleedka khaatumo ayaa noo qaabilsan wixii siyaasada aan ku celiyo waxaan ku taageersanahay garaad jaamac garaad cali hadalkiisii ahaa ee ku celcelin jiray ee ahaa annagu waxaanu nahay oday dhaqameed siyaasad shaqo kuma lihin waxa noo qaabilsan xagga siyaasadda maamul goboleedka khaatumo isdeed iyo madaxweynaha iyo golayaashiisa ayaa noo qaabilsan garaad jaamac taasaban anu ku taageersanahay waxaana garaadka ilaahay khayr ha siiye anigu aan fakarkayga u sheegaya iyo ra'yigayga oo garaadka kula talinaya garaad jaamac inuu ugu dambeeyo hadalka soo baxa iyo hadallada soo baxa ee dambe ee soo bixi doona faraha badan leh inuu noqdo garaadka ugu dambeeya go'aankaad leedahay malihid inaad adigu ugu horreysid waxaad leedahay go'aanka meesha ugu dambaysa marka wax waliba soo dhammaadeen soo xidha garaadka ugu dambeeya ka hadlaya ayaan rajaynayaa inaad halkaas ay noqoto tan ah aye arrintan ismadii khaatimo garaad jaamac kaliya ka jooga badankood waxay joogaan Puntland iyo Somaliland qaarkood dowlad degaankay ku sugan yihiin garaad jaamac kaliya yaa ka soo haray ismadii iyo Suudaan Saciid sidee marka labada garaad kaliya ay khaatimo sidee mandate dhan ay ugu siin karaan mar haddii ismadii khaatimaba aysan dhammayn sidee loo oran karaa garaadkii kii ugu dambeeyay ha noqdo ama kii ugu dambeeyay arrinta bal meeshii fiishi ka bixi waxaan ku noqonayaa inaan su'aasha oday dhaqameedka aad sheegtay intaan gelin waxa jira garaad jaamac garaad cali ilaahay ha xafidee hadalkiisii dad waa hore kooma galay oo ka soo horjeeday maamul goboleedka khaatumo ka soo horjeeday jiritaanka maamul goboleedka khaatumo ka soo horjeeday oo badan oo suuxsanaa oo kooma ku jiray ayaa soo kacay oo sariirihii iyo isbitaaladii ay jiifeen ka soo kacay iyagoo ku soo kacay oo ku soo toosay oo naf mooday garaad jaamac garaad cali hadalkii uu yidhi ku soo kacay oo meel walba isa soo tubeen markii ay maqleen garaad jaamac hadalkiisii ayay soo kakaceen iyagoo iska dhigaya niman maamul goboleedka khaatumo inay jeclaayeen oo markaa iyagoo jecel garaad jaamac hadal u yidhi ayay soo kakaceen
kuwaas waxaan u sheegayaa waa laydi ogaa haddaad xamar joogtaan waa laydi ogaa haddaad joogtaan garoowe waa laydi ogaa haddaad joogtaan kenya iyo islii waa laydi ogaa waxa weeye kuwaas fariintaasaan u dirayaa waxba garaad jaamac hadalkiisii ha ku soo kicina garaad jaamac hadalkiisa waa hadalka aan sheegay wuu u naxdin baahid u ka yara naxay uun laakiin ma ahayn nin khaatumo burburinteeda iyo ummadda khaatumo waa ninkaa loo dili gaadhay haddaan ku soo noqdo oday dhaqameedkan aad sheegtay dee anigu maba aaminsaniba oday dhaqameed dhulbahanta maba aaminsani waa horaan sheegay anigu waxaan aaminsanahay niman garaadda aabbayaashood garaadda ahayn horena waa u sheegay niman aabbayaashood garaadda ahayn ayaan anigu xusuustaa laakiin garaad dhulbahanta ah garaad dhulbahanta ah oday dhaqameedyadaas aad sheegayso waxaan garaad jaamac ka ahayn warkayga waa caddaysanaya waxaan garaad jaamac ahayn anigu ma ogi oo oday dhaqameeda oo aan garaad jaamac ahayn oo garaad dhulbahanta ah oo khaatumo iyo maamulkooda ixtiraafsan way jirtaa inay sool iyo sanaaga iyo cayn qabaa'ilka dhulbahanta inay yihiin anigu waxaynu ka hadlaynaa waa sidaa qabiilka ma yihiin mise maaha waxa su-aashu tahay su-aasha waxa weeye darajadii oday dhaqameed weyn waxaynu ka hadlayno hala fahmo waxaan ka hadlayaa maaha ninkani qabiilka ma yahay mise maaha waxaan ka hadlaynaa waa darajada ay saaran oday dhaqameed kelmadda oday dhaqameed waa darajo weeye darajo nimankaa wata oday dhaqameed la yidhaahdo oo khaatumo taageersanaa oo meel jooga anuu garan maayo waxaan garanayaa niman garoowe jooga oo lacagtooda ka qaata oo afkooda iyagu caddeeyey idaacadaha ka sheegay inay khaatumo ahayn ka soo hor jeedaan ayaan u garanayaa marka su-aashaas wakhti badan inagaga lumin ma jiro oday dhaqameed jooga oo khaatumo taageersan oo meel jooga maamulkana waxaa leeyahay oday dhaqameed waxabaha ha ka fakerin waxbana ha weydiinina wahagaag waxaan u gudbinaa dhanka somalilan maamulkaada wada hadalka kula jirtaan heshiiskii hordhaca ahaa is afgaradka ahaa waxaa ku jira qodobka in dastuurka somalilan la furo minis waa in la bedelo qodobo ka mid ah oo ku jira faysal cabdiwaraabe wuxuu ka mid ahaa mimbarkii wada hadalka khaatumo ee somalilan hadalkii uu shalay jeediyey waxaa ka mid ahaa dastuurka somalilan laba u qaybsamaa 8 qodob lama taamtaan weeye inta kale waxa weeye waa awood qaybsi inta la furay waa awood qaybsi halkaas waxa ka baxday midnimadii Soomaaliya khaatumo dastuurkeedu waxa ku yaala midnimada Soomaaliyeed Somaliland dastuurkeedu waxa ku yaala inay goosada ama jumhuuriyad gaar ah tahay Somaliland ba tanaasushay mise idinka midnimada ka tanaasulay su-aashaadii weydiisay hadday tahay in cali waraabe iyo markii ugu dambaysay iyo hadalladiisa hore hadday su-aashu saa tahay in cali waraabe anigu hadalkiisa waxa aan ka soo qaadayo habeenka caawa in cali waraabe hadalkiisa ma jiraan waxa weeye maalin walba wuxuu doono ku hadlaa maalinta hore hargeysa 5 qodob la saxiixayna sibuu hadlayay maalintii dhaweyd ugu dambaysay ciidana hadal buu ku hadlayay marka anigu in cali waraabe hadalkiisa wax aan ka soo qaadayo wariyo male waqtina haynaga numay ninka hadalkiisa laakiin 5 qodob sidii aynu sheegnay ama ummadduba ogtahay wax heshiisa iyo wax qodob ah oo la gaaray oo meesha dhacay ma jiro waa is-afgarad weeye birita laga bixi karaa tomorrow laga bixi karaaba khaatumo waa boodi kartaa hadday doonto waxay odhan kartaaba shantii is-afgaradka waanu diidi Somaliland baa wiiga dambe diidi karta oo odhan kara is-afgaradkii yaraa ee 5 qodob aan ka baxnay waxa weeye wariye taas weli wax la gaaray oo decision oo go'aan ah oo la gaaray oo la kala saxiixay ma jirto wagaag jaleedaha khaatumo waxaan ognahay ama ogsoonahay khaatumo waxay ku dhisantahay jaleedo maamul dawlad federaal ay aqoonsan tahay ama caalamku aqoonsan yihiin deegaanka dadkii lahayn ay yihiin wala aqoonsay laakiin in ay ismaamulaan ama sida dawlad goboleedyada kale looma aqoonsana jaleedo ku dhisantahay jaleedihii guud waa taageera khaatumo arintana waa ay soo dhaweeyeen balse waxa jira xubno kamida G11 oo arintan ka biyadiibay sida Cabdirashiid Cali Macalin Faarax iyo Dr. Cali Ciise Cabdi oo laf dhabarna u ahaa khaatumo maxaa la oran karaa mucaaradka ama fikirka ay ku kala duwan in wada hadal la furo khaatumo Somaliland dhabar arintaas ku keeni kara dhabarjab ma ku keeni kara wada hadalka khaatumo Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim sida sheegtay weeye jaaliyadaha guud
ee sool iyo sanaag iyo cayn meel ay joogaanba intii guud way taageereen waxaan halkan uga hambaliyeynayaa ninka la yidhaahdo master xambuuse ee Minnesota ee gudoomiyaha jaaliyadda halka master xambuuse iyo maxamed jibriil oo aan maranaya Birmingham joogo labada gudoomiyaha jaaliyadaha guud maxamed jibriil iyo xambuuse oo aan daawaday ama dhageystay sida warbixinaha iyo sida taageerada ay u siiyeen maamul goboleedka Khaatumo aad baan maartay halka ugu hambalyeynaya waxa weeye nimankaasi waa niman aad u fahmay qiimeeyay aad ugu fiirsaday xaaladda sool iyo sanaag iyo cayn xaalkeedu meesha uu marayo maamul goboleedka Khaatumo meesha xaalkiisu taagan yahay guud ahaan sool iyo sanaag iyo cayn reer Khaatumo xaalkeedu meesha uu taagan yahay nimanka odayaasha ee jaaliyadaha guud xukuma runtii aad baan ugu mahadcelinayaa iyo gudiyada ka hooseeya iyo kuwa ay la wada shaqeeyaan dhammaantood waa idin mahadcelinaya sida fiican ee qoraalkoodii xitaa aan wakan akhristay iyo sida hambaliyadooda ahayd ee ugu hambalyeynayaan maamulkoodii Khaatumo iyo is-afgaradka siday u akhriyeen iyo siday u fahmeen aad baan ugu hambalyeynaya aad haddaan u soo noqday su'aashaada ahayd wariye niman G11 anigu ma aaminsanidii wax G11 la yiraahdo iyo wax G17 la yiraahdo iyo wax G10 la yiraahdo midna ma jirto waxaasi waaye ahayn horeyna uga hadalay dadkuna waa horeyba ka qoosteen waxaasi wax qiimo ay leeyihiin ma leh niman meelaha iska hadlaya waa kuwa ku soo kacay sheegay hadda garaajama hadalkiisii ka Mareykanad waxaad weydiisay nimanka G11 ayaan rabaa inaan si fiican u faahfaahiyo nimanka G11 adeer wateen waa hor shaqada iska xidhnay Cabdirashiid hebel macalinka sheegaysana iyo nin kale iyo kuwa sheegaysay G11 G10 midna Khaatumo wax kuma sameyn karaan nin doonaya inuu Minnesota isagoo jooga ama New York jooga ama London jooga caruurtiisii iska wadwato caruurtiisii ciyaarsiisanaya ayaa marba intuu meel soo fadhiista wuxuu oranayaa Cali Khaliif Basaasa iyo maamul goboleedka Khaatumo waa burburay adeer waxa weeye yaa kule ma waxa kule Minnesota ninka ciyaalkiisa iyo xaaskiisa ciyaarsiisanaya mise waxa Khaatumo og ninka u jooga Balcad iyo Wirwid iyo Saxdheer iyo Buuhoodle duqsiga iyo kanaacada ku cunayso ninka weeye ninka Khaatumo wax laga weydiinaya haday ru sheegayaan adeer nimanka aad sheegayso bal waa kaas intay tagaan ha tageen bal waa kaas Wirwid Balcad xamar lagu xid Buuhoodle bal waa kaas kanaacada iyo boorka iyo habaaska arsaxdeen nin kaliya oo raba oo halka Cali Khaliif iyo nimanka maamulka jooga ay ku jiraan nin kaliya oo Mareykan iyo Canada iyo adduunka jooga oo dhul bahanta oo tagaya halkaas oo raba inuu kanaaco iyo boorka saxdo ma jiro nin waliba wuxuu raba isagoo labisan isagoo qurbaha jooga oo kubashiin cabaya in uu yiraahdo Cali Khaliif ba kaasa iyo Cali Khaliif Basaasa iyo Cali Khaliif muxuu go'aan u gaaray iyo Cali Khaliif Soomaaliland loo hadlo nin kaliya oo raba arbal waa ninka taga Wirwid iyo Balcad ninka halka taga ee boorka iyo kanaacadu ku dhacayso ninkaasaan anigu nin raga u aqaana ninkaasaan anigu ayidi karaa ninkaasaan anigu sport siinaya ninka halka jooga laakiin anigu ma siinayo nin caruurtiisii iyo reerkiisii dabadda joogaan oo caruurtiisii reerkiisa ciyaarsiisanaya kama yeelayo waxaan taageerayaa ninka caruurtiisii iyo reerkiisii kaga tagay iyo barwaaqadiisii intuu kaga tagay Wirwid iyo xidhxidh iyo kalabaad iyo Buuhoodle ninka u jooga ee kanaacadu cunayso ee mushaharka iyo cid lacag ku siinaysa aan jirin ninkaasaan taageeraya anigu ninkaasaan leeyahay Khaatumo hala taageero wagaag Puntland baynu soo laabanaa Puntland 98 ka xawad la dhisatay reer Khaatumo waxaad ku hadaaqi jirteen Puntland oo walaalaheen haddii abtirsano noqoto iyo haddaad ay noqotoba inaad wax la dhisateen maanta waa maamulka kaliya hadda marka la fiiriyo Somaliland iyo Puntland xagga siyaasadda aad ku lolomaysaan haddii dawladda federaaliga noqoto iyo hadday noqoto xuduudada Khaatumo iyo Puntland shacabka reer Puntland arrintaasi mid ka duwan bay qabaan shacabka reer Khaatumo mid ka duwan bay arrintaas qabaan balse siyaasiyiinta reer Khaatumo iyo siyaasiyiinta reer Puntland xilafta badan oo siyaasadeed baa ka dhaxaysa maxaa arrinta ugu muhiimsan oo keenay maxay tahay horta anigu waxaan moodayaa Puntland iyo sheekadeedaba horta inay mar hore dhamaatay
bal horta anigu haystayba laakiin waxaan ogahay oo aaminsanahay sheekada Puntland goorta ay dhammaanayso maanta ku sheegaya anigu haddii inta ilaa iyo la soo xidho xuduudda sool iyo sanaag iyo cayn iyo xuduudda Puntland inta la soo xidhayo oo inta ciidan la dhigo la soo xidhayo arrinta Puntland hadalkeedu waa tagnaanaya ee ku saabsan khaatumo inta xuduuddeenna aynu xidhanayno oo Puntland iyo koonfur ka xidhanayno sheekada Puntland dhammaan mayso adeer horta waa taa maalintaas horta dhammaanaysa maalinta aanu xuduudda xidhanno ree khaatumo xuduudda ay leeyihiin Puntland maalinta aynu xidhno oo ciidan dhigno oo kantaroolo maalintaas sheekada Puntland dhammaanaysa inta ka horeysa ma dhammaanayso tan iska hadalkay hadlayaan iyo dee wax jiraba maahaba dee wax jiraba waayo innaga maxaa naga dhexeeyaba dal iyaguna inagama haystaan innagana dal kama haysano laakiin sheekadoodu maalinta xuduudda aynu xidhno maalintaas sheekada Puntland dhammaanaysa xuduudda ayaa xidhaya ma khaatumo mise Somaliland insha Allah waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka rajaynayaa haddii aynu wax wada samaysano maamul goboleedka Somaliland haddaynu wax wada samaysano oo hal maamul aynu wada noqono waa khasab xuduudda inaynu xidhanno waa khasab haddii kalena oo aynu nimankaa heshiin weyno oo waxa aynu waxba kala qaybsan kari weynana oo aynu kala tagnana waa in waxaynu ku khasbannahay iyadana xuduuddeennii اليوم من الأيام إنه حدنا حدودنا إنه حدنا أو أي خاطم حدنا مالنون لكن شكله ما أنت حدود إنه حدنا ما يصير بدلان وهيك Puntland كلية حدود لما الهدين Somaliland بد حدود الهدين مركز ليه هاي وحدان كوهشين وين Somaliland حدودك Puntland ما نحرنا كSomaliland كاسميدي فرانا يا مسي سنة حرسان وسؤال فعلا Somaliland maanta wada hadal baad noo socday anaga Puntland iyo khaatumo wada hadal u socda ma jiro waxa noo socda wada hadal ayaa noo socda Somaliland iyo khaatumo wada hadal ba u socda hadalkaasi sidaan ku soo sheegayba hadduu guul ku dhamaadana xuduudda waa la soo xidhaya iyadoo hal maamul oo wax leeyahay Somaliland wax khaatumo la yiraahdo oo kala taadayaan jirin ay waqooyi la wada yahay ayaa xuduuddaas la soo xidhaya haddii la waayata ilaa waa heshiis afgarada weli go'aama ma dhicin weli wax heshiis oo Somaliland iyo khaatumo ay gaadheen oo ay isku darsadeen oo wax qaybsadeen oo kayda la saaray ma jirto weli waa arrin taagan haddii arrinkaasi hagaago oo aynu hal maamul wada noqono xuduudda waa la soo xidhaya waa khasab haddii aynu kala tagno oo aynu heshiin weynana waynu xidhaynaa maalintoo doonta ha noqotee waxaynu xidhaynaa xuduuddeeda waynu xidhanno maalin goortay doontaa noqoto wagaag Somaliland dhowr ilaa sano lahayd jamhuuriyad gaaraan ahay oo la mid ah dawladaha geeska Afrika khaatumo sidoo kale muddo dhowr sano iyada ay lahayd maamul dawladda federaalka ka tirsan baanahay labaduba aqoonsi ma aysan helin muddo badanna way ku hadaaqayeen iyagoo leh midna maamul goboleed daanahay midna ay leedahay jamhuuriyad ama dawlad gaar ah bal oran kala labaduba waa soo daaleenoo dhaxda isku yimaadeen labaduba سؤال ومقدشة يا Somaliland بس Somaliland يخاطموا Somaliland يخاطموا أوكي Somaliland ويصوت هابطي وح أقوس وح أقوين وأشين لا تلحي لا تنسى رادينسي وح أقوين أقوسي بي رادينسي أقوسي وكسر قصة Somaliland أقوسي وكسر قصة taas ayaa markaa maanta markay aqoonsi ay 26 sano raadinaysay ee ay aqoonsi soo weyday halkaas Somaliland markaa waxa iyadii ay danteeda u aragtay inay la heshiiso maamul goboleedka khaatumo inay la heshiiso Somaliland taas ayaa iyada u aragtay khaatumo ma khasbi Somaliland kaasi wuxuu ahaa Korneel Axmed Jaamac Xaaji Ciise Gadle oo waramayay Abbas Suleymaan Jaamac Abbas Maday waraysigan oo dhameystiran waxaad ka daawan doontaan telefishinka caalamiga RTN studio-giisa magaalada Nairobi Abbas Suleymaan Jaamac Abbas Madani
telefishinka caalamiga ee RTN Sudan Gothenburg.